weligaa qof ma ku tiri iska daa sigaarku caafimaadka uma roona kadibna jawaabtiisu ma noqotay adeerkayba waxa uu isticmaalayaa macabay muddo 30 sano ah ilaa ay haddana waa caafimaad qabaa ama ruux leh waxbarashadu muhiim ma ah waayo bilyaneerada adduunka Bill Gates, Mark Zuckerberg iyo Steve Jobs maysan dhiganin wax jaamacad ah markii sidaa ay leeyihiin waxa ay hilmaamayaan dadka hal shay oo muhiim ah waxay eegayaan kuwa badbaaday ama guuleystay oo kaliya in ka badan 8 milyan oo qof ayaa sanadkii u geeriyoota cabista sigaarka marka dhinaca kale ee waxbarashada aan eegnana bilyaneerada dunidu boqolkiiba 84 waxa ay haystaan ugu yaraan shahaadada bachelorka ah habu fikirkan waxa la yiraahdaa eexda badbaadaha waa marka kaliya aan eegno kuwa guuleystay oo aan iska indhatirno kuwa guuldareystay dagaalkii labaad ee adduunka injineero ayaa baaray diyaarado ka soo noqday dagaalka kuwa oo ay dhibaato ka soo gaartay rasaasta halkaa oo ay ka haleeshay baalasha iyo dhanka dambe injineeradu waxay go'aansadeen inay xoojiyaan meelahaas ay rasaastu dhibaateysay balse caalim ka mid ah injineerada ayaa sidaas ka duwan u arkay sheekada waxa uu yiri diyaaradahan waa kuwa nasiibka leh waxayna nasiib u yeesheen oo u soo badbaadeen sababta ma aha in ay ka daciifsan yihiin baalasha iyo dhanka dambe iyo baalasha dartood ay u soo badbaadeen waayo kuwa kale ee burburay ama la waayay waxa laga toogtay matoorka iyo meesha u fadhiisto duuliyaha isagoo oo markaa tusay in dhibaatada ay tahay in meelahaas ay daciif ka ahaayeen diyaaradaha loo baahan yahay in halkaas laga xoojiyo marka loo eego kuwa soo noqday oo kaliya ciidanku waxa ay gaari lahaayeen go'aan qaldan taas waa sida ay u shaqeyso eexda badbaadaha iyadu waxa ay nagu qancisaa inay fududahay guusha ama qof walba u gaari karo iyadoo aan la arkin inta badan ee guuldareysatay waxaanu maqalnaa sheekooyinka dadka guuleystay markaas ayaynu moodnaa in qof walba uu sidaas noqon karo fikraddan waxay keentaa inaanu si xad dhaaf ah u rumayno guusha isla markaana aan hoos u dhigno guuldarrada iyo halista taasina waxay horseedi kartaa go'aamo khatar ah tusaale ahaan miiqad jar ayaad maqashaa qof leh waan tahriibayaa waayo saaxiibkay ama qaraabadeeda qof ka mid ah ee Yurub tagay isagoo iska indhatirayo kumanaanka kale ee ku nafwaayay jidkaas sidii ay Yurub u tagi lahaayeen waxay arkaan oo kaliya kuwa gaaray ee ma arkaan kuwa ku nafwaayay marka xigta ee aad maqasho sheeko guul ah weydii naftaada imise sheeko oo guul darro ah oo aan la sheegin ayaa ka dambeeya